bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida. qodobada ugu waaweyn oo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona dowladaha qatar iyo raashka oo ka wada hadlay xaaladaha ammaan ee dalka soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta u duulay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya, halkaasina si weyn loogu soo dhoweeyey. dowladda etoobiya ayaa sidoo kale waxay war ka soo saartay safarka madaxweyne farmaajo uu ku tagay magaalada addis ababa. nin la sheegay inuu kufsaday gabar yar oo dil toogasho ah lagula fuliyey magaalada garbahaarey ee gobolka Gedo. daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. markana kusoo dhowaada warkii oo fidsan. dowladaha raashka iyo qatar ayaa waxay ka wada hadleen xaaladaha ammaan ee dalka soomaaliya. amiirka dalka qatar ayaa magaalada dooxa ee caasimada dalkaasi kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda raashka Sergey Lavrov. war ka soo baxay dowladda qatar ayaa lagu sheegay in amiirka dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda raashka ay ka wada arrinsadeen xaaladaha ammaan ee dalal Soomaaliya ay ku jirto oo Suuriya iyo waliba gacanka birsha uu ka mid yahay. sidoo kale labada mas'uul ayaa si aad ah uga soo wada xaajooday horumarada ka jira gobolka iyo waliba sida ugu habboon ee lagu kordhin karo taageerada la siinayo dalal Soomaaliya ay ku jirto. dowladda qatar ayaa ka mid ah saaxiibada ugu muhiimsan ee Soomaaliya, waxayna hadda xiriir dhow la leedahay madaxtooyada Soomaaliya oo wakiil uga ah taliye ku-xigeenka hay-adda Nisaa Fahad Yaasiin iyo taageerayaal kale. isku soo dhawaanshaha dalalka Soomaaliya qatar ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay go'aan dhexdhexaadnimo ahi ka qaadatay khilaafkii Khaliijka, taas oo keentay in Imaaraadka Carabta uu ka caroodo go'aankaasi islamarkaana xumaado xiriirkii ka dhexeeyay labada dal. xukuumadda dooxa ayaa hadda mashaariic horumarineed oo dhowr ah ay ka fulinaysa Soomaaliya, waxaana ku baxaya malaayiin doolar oo lacag ah. dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya, waxaana halkaasi kusoo dhoweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa saacadaha soo socda waxay kulamo la qaadan doonaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, sida ay shaaciyeen madaxtooyada Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. kulankooda ayaa waxay uga wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo guud ahaan horumarka iyo nabadgelyada gobolka. waxaana xusid mudan in maalmo ka hor Addis Ababa uu tagay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khilaaf diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo Soomaaliya. safarka madaxweyne Farmaajo maanta ku tagay Itoobiya oo ah mid degdeg ah ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu sabab u yahay socdaalka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku maraya dalal ka mid ah kuwa geeska Afrika, iyadoo loo arko mid Kenya ay ku wiiqayso isbahaysiga ay Soomaaliya la leedahay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa waxay war ka soo saartay safarka uu dalkaasi ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay yeelan doonaan kulan ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka geeska. sidoo kale wasaaradda waxay sheegtay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaalka uu gobolka ka wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xoojinta nabadda iyo isku xirka dhaqaalaha gobolka geeska Afrika uu ka mid yahay. guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen youtube-ka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay, share dheh, faaladaadana qaybta hoose noogu reeb. waadna mahadsantiin.